asagana meesha baa laga soo tuuray ul iyo laad baa lagu wada meesha looga soo tuuray saaxiib jurayjna waad garanaysaa aniga xadiidku soo qaaday way ninkii suufiga ahaa ee cibaadada badnaa reer bani Israa'iil kamid ahaa ee asagu adduunyo aan dan ka lahayn ee sawmica intuu meel ka dhistay uu iska cibaadaysan jiray hooyadiis baa soo ziyaaratay markaasay u jeertay salaad buu ku jiray asagoo salaad sunnah tukanayo ayay hooyadii u yeertay yaa Jurayj markaasuu qalbiga ka yiri ilaahayow hooyadii baan ajiiba mise salaadan sii wata waxa uu soo baxday inuu salaadiisa wato saddex goor bay ku soo noqotay bale saddex goor markay ku soo noqotay waa nin cibaado badan markasta waxay u iimaanaysaa asagoo salaad ku jiro markay u yeertana wuxuu leeyahay inuu hooyadii ajiibo wuxuu ka hormarinayaa salaada markaasay habaartay xoogaa habaarkana way ugu turtay oo aad umayn habaarin laakiin waxay tiri Allahumma la tumitu hatta turiyahu wujuhal mumisat ilaahu nafta ka qaadin ilaa uu arko gabdhaha yaani sharmuutooyinka ama dhilooyinka wajigooda uu arko nin cibaado badan buu ahaa oo naag iyo adduunyo iyo waxba shaqo aan ku lahaynba marka waxay ku habaartay ilaahu hadilin nafta ka qaadin ilaa uu naag dhilaa wajigeeda arko waa khatar eego waalidka habaarkiisa khatar way waalid zinada kumayna habaarin marka reer bani Israa'iil waxa kamid ahayd naag aad u qurux badan oo quruxdeeda lagu sheekaysto hadana yaani zaaniyad oo yaani kuwa jirkooda iibsada markaas waxay maqashay Jurayj oo cibaadadiisa lagu sheekaysanay markaas ay tiri ninka ma nin cibaado badan baa ana cibaado ka fidnaynay iibkaadi gurigiisa umay dalaq ugu soo tiri ridda u soo istaagtay Jurayj waan ku doonayaa mar ilaa hadal baniyo intay aad isu soo ziinaysay markiina soo dhar yaraysatay yaaba fiirinaya saa u fiirinaya salaadun buu isaga jiraa ninka munaajaad ilaahay buu ku jiraa waxaan hortaagnay naagta inay geed tahay oo shaqo kamal ma kala ogabo markay kari weeyo wax walba ku dayday ayay intay baxday oo mid raaci oo qowsaar oo xoolo la joogay u tagto waxay tiroriyo ma u baahan tahay shaqo waxaan ku diidibi kiiba isma kanisay kiiba uu reeyay marka wiil bay ku dhufatay wiilkii markay dhashay waxay tiri oo xali xageed ka keentay wiilkan min Jurayj ninkii Allah idin uu cibaado badan yahay kii baa iga dhalay tir reer bani Israa'iil maxay sameeyeen marka weer baa lagu soo qaaday sawmicadiisa yareeyay meesha uu ka sawmica yaani geeda iyo dhoobo ka dhisan bay hayday waa la jajabiyay asagana meesha baa laga soo tuuray ul iyo laad baa lagu wada meesha looga soo tuuray magaalada lagu soo dhaxjiiday oo waxa la leeyahay khaa'in cibaadadiisa dadka ku khayaanaya Soomaa dadin oo isuufiyo oo meesha ku cibaadada dadka isaga dhigaysa balaayadana waa sameynaysa markii uu la garaacayo la caayo wuxuu leeyahay war maxaa dhacay maxaad iga tataan maxaan sameeyay markaas waxa la yiri hadee ilma dhashay garaaco oo naagta tii baqiyada zaaniyada bad wiil ka dhash musaasa bali kaadi buruay wax yar ii kaadi bur laba ragcadood buu tukado salaatu xaaja markay dhibaato kuuma timaado inaad ilaahay xaqiisa u cararto way Soomaa nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam kaana idha hazabahu amrun faza'a ila salat salaadun buu nabiga laba ragcadood buu tukan jiray ilaahay buu bari jiray maxay maxalul munaajaad meesha ilaahay lagu la hadlo waa salaada way silada adoonka iyo ilaahay xiriirka ka dhaxeeya waa salaada hadaa doonayso mar kastaba inaad ilaahay la xiriirto te salaada badi salaada tuko laba ragcadood buu tukaday wuxuu yiri ilaahay buu bari ii geeyay buu canugaad sheegaysan oo anu aan dhalay canugi baa loo geeya oo ilmaha hadda dhashay ogo geed meeshan ku yaalay buu intuu laan sida uga soo jabsaday ayuu canugu sida kalido ugu dhuftay intuu hudka si wuxuu yaa qulaam man abuk canugu yaa ku dhalay balinkan sidii isugu kalsoon yahay ilaahay ugu kalsoon yahay canugan hadda dhashay buu rabaa inuu hadlo man abuka ayuu yiri yaa qulaam markaasuu yiri abi ar-raa'i qowsaarkii baa dhalay war miyaa yaalaade reer bani Israa'iil markaas ay Jurayj ku soo boodeen oo dhunkasho lugaha iyo gacmaha ay ka dhunkanayaan raalli ah baa leeyahay sawmicada aan ka jajabinay dahab baan kaaga dhisayna hadda awal dhoobay ahay Soomaa dahab baan kaaga dhisayna raalli ah dahabna hayga dhisayna wuxuu yiri dhoobadeedii igu celiyo mar rabaan ugu dahab sideedii baa loogu dhisay markaa ninka wax saaxiibu Jurayj baa la yiraahdayo fiiri ninka yaani ilaahay adoomihiisa wanaagsan xogaa ninka hooyadiis xaqiisa laga imtixaamay laakiin ilaahay cibaadada ilaahay uu ku xirnaa ninka wali ilaahay buu ahay sida ilaahay uu aqbalay fiiri iyo karaamada ilaahay si canuga hadda dhashay baa hadlayo yaa ilaahay ku bariyay fiiri dadka ilaahay dadkiisa yaani markay dhibaato ku timaado sida umba ilaahay makhraj yaani uga bixinaya wama yattaqillah yaj'al lahu makhraja mar alla markii arrin ku yimaadaan ba meesha uga bixi lahayn ba ilaahay u sahlayaan saaxiib